السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داود يا الملك استوجوكتان ومركل يا برنامج كيني فلقيت تضباطك وتضباطك استهل مرات كداوتان تي في يونيفرسال. حابين كان عاوا برنامج كينا وحين نكون فلقين دونا الصومالي لان waxay jirtaa muddo 7 sano oo lagu joogo waqtigii ay ka soo go'day Soomaaliya inteeda kale 1990kii muddada intaas u dhaxaysay Soomaaliland waxa ay raadinaysay ictiraaf ay ka hesho dalalka dunida waxaanu barnaamijkeena caawina diiradda ku saari doonaa halka ay Soomaaliland u marayso ictiraafka iyo waliba siyaabaha ay u heli weyday haddaba toddobaadkan barnaamijkeena waxa marti inoogu ah injineer Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID wasiir ku xigeenkii hore arrimaha dibadda Ahmed Kayse arrimaha dibadda Soomaaliland weeyaan Professor Xuseen Bulxan oo muddo 20 sanadood iyo in ka badan Soomaaliland u raadinayay sida ay adduunka uga heli lahayd ictiraaf iyo waliba Maxamed Cabdi Cali oo ah aqoonyahan amba macallin jaamacadaha dalka wax ka dhiga iyo Professor Ismaan Abukar oo isaguna jaamacadaha dalka wax ka dhiga iyo Salmo aqoonyahan in badan Soomaaliland iyaduna ah dhalinyarta aqoonyahanka ah waliba tana waxay baratay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda haddaynu ku furano su'aasha ugu horeysa barnaamijkeena injineer Faysal Cali Xuseen oo Faysal Cali Waraabe Soomaaliland muddo 27 sano jirtay Soomaaliland marka la eego xagee ayuu kaga xiran yahay ictiraafkeeda ictiraafka Soomaaliland gacanta inaga ku haysan ilaa ka soo kow laana waxa weeye keyskeenu maaha saymka tirahan ee Soomaaliland oo ka go'day Soomaalida inteedii kale maaha arintu waxa weeye Soomaaliland oo kala noqoto midnimada ee Soomaaliya la lahayd wax inteeda kale ma jiro waa waxyaalaha yani reer Soomaaliya afkay nagu ridaan inaguna aynu sidii babqaaga aan ku tirsanay waxa weeye inagu dalkani dal waxa weeye jiray oo union la sameeyay 60kii dagaalka bacdina goostay inuu arrintiisa baxo keyskeenu markaa waa keys international ka inaga noo dhaxeeya in adduunku ay la macaamilo adduunka weydiisana ictiraafkeena ee wadahadalada Soomaaliya ee la soo saaray waxay wadahadaladaas dhacaan marka laba qaybood kala bixi waayaan sidii Suudaan iyo Suudaan sidii Tamir iyo East Timor iyo Indonesia ayaa hala joojiyo dhiiga oo hala yimaado compromise la sameeyo inagu waxa la waxay la faray Soomaaliya inagu leedahay ma jirto dawladii aynu la dagaalanay meesha way ka baxday ilaa haddana dawlad Soomaaliya oo cagaa ku taagan oo sax oo taagan ma jirto waxa weeye uun markaa inaga waa inagu qasbay waxa la yiri wada hadla ilaa haddana ma haysana waxa ilaho bartina stronger oo dhisan oo dawlad Soomaaliyeed oo mandate haysata ma haysano marka inagu arrinta waxay la tahay inaan two tracks galano wada hadalna Soomaaliya la wadno hadee ay aragna dad hagaagsan adduunkana aan la macaamilo stateska aad wax ixtiraafee state to state aan ka bilowno igad ka bilowno EU ku xigsiino EU ku xigsiino Arab League ku xigsiino oo saa u soconaa way laakiin uu garda duubnaa dal aan jirin inaga inuu xiran tahay oo ah waxba qabsan oo wali aan ona wixiina aan doonano oo in dhashay qaybsanaan dhexdeena ah oo in fighting dhexdeena ah ayaa in dhashay politics gudaheena ah laakiin waxa u baahanahay in focus ka saarno saynu u helneen arinteena oo kow gudaheena hagaajin oo xuduudaheena aan geeyno sharciyeena oo international borders keena aynu sugno oo in Soomaaliland inclusive ka dhigay mid la wada leeyahay oo qadiyadan lagu wada raaliyahay oo la wada doonanayo ay tahay laakiin Soomaaliya waxay leverage nagu leedahay ma jirto waa dusha inaga saaray dawlad aan jirin baa la ictiraafay oo loo ictiraafay dalal leeyahay security wadamada ictiraafay naftooda ilaa iyo ictiraafeen inay la dagaalamaan dhalinyartaas oo dawlad mandate siisata oo tiraaqaale dalka kaale ka seexata ay ka sameystaan ayaa sameysay laakiin dawlad Soomaaliyeed maanta aan la xaajoonina oo jirta practical run ahaan horta ma jirto 20kii sanadood oo dambeeyay Soomaaliland waxaad ka ahayd waxaad u soo ololeynaysaa si ictiraaf ku heli lahayd waxaanad la taliye ka ahayd wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkaadu ahayd su'aasha Faysal la weydiiyay xagee Soomaaliland ictiraafkeeda ay u mari kartaa imika hawshan ictiraafku qayb ilaahay ka sokow waa wax gacanteena ku jiray iyo dadaalkeena nolosha marka dhinac walba aad ka eegto bini aadamku mushkiladuu la kulmaa mid yar iyo mid weynba
mushkiladda haddaad dhulka isdhigto oo aad tidhaaho waa mushkilad iga weyn dee waxaad qabsanaysaa baan jirin haddii muddo aad haysatay oo muddadaa aad xallihi kari weydayna waana dib u noqotaa oo tidhaa maxaa iga xun maxaa iga qaldan 20 sano iyo dheeraad dhowr iyo 20 sano waxa aynu doonaynay inuu keeni weynay fikraddii hore ku soco ma shaqanayso waana dib isu eegtaa oo tidhaahaa maxaa khaldan dariiqeen maxaa halkee waxaan ka yimaadeen anigu sidaan qabo mushkiladda ictiraaf la'aanta internationally waxay ka timi mushkilad innaga iyo dadka Soomaaliya layna dhex dhigay horta marka ugu horeysa maaha Soomaaliya waxayna haysato Soomaaliya nama haysan kartay sidee marka habar ma balaha taag ay kugu haysato waa mushkilad layna dhex dhigay su'aashu waxa weeye yaa ina dhex dhigay xagee ku timi taa la isma weydiinaa ma ogti kow ictiraafka ay haystaan mid ay sharci ku heleen maaha mid ay awood ku heleen maaha mid ay ku heleen maxaan ku idhahaa dhaqaale iyo wax iyo aqoon iyo wax ina dhaafsan maaha taa horta waa xaqiiqa innagoo dhisan baynu ictiraafkii weynay iyagoon dhisnayn baa ictiraaf la siiyey dad baa siiyey oo hadiyad u siiyey stateka ay sheeganayaan waa state la dhoodhoobay oo la sameeyey oon weli jirinba teennii intaa jirtayna ictiraafkii baa loo diiday su-aal ismayna aan weydiin yaa inaga hor jooga Soomaaliya dadka Soomaaliya iyo Somaliland waxa weeye mushkilad la dhex dhigay yana qabsan iyaga maxaad ku qabsan iyaga kuma haystaan nin wasiir laga dhigay ama dawlad la dhoodhoobay oo la sameeyey ayaa wixii diiday inaad tidhaa horta waa nusqaan baan u arkaa marka waxaad leedahay inaga ka gaabinay inagaan fahmin wixii mushkiladii dib in loogu noqdo dadkii ka mas'uulka ahaa ictiraaf la'aanta ma baynaan raadin manaynan fahminba isma baynaan weydiin markaa mushkiladaha aynaan isweydiin ee xagee ka timi dee xal ma helaysid haddaanad fahminba waxaynu ku fadhinay mar aynu nidhaaho dawlad aanu la hadalaaba ma jirto ayay sugda ilaa yowmal aakhirka dawladdaasi inay dhisanto markay dhisantay ay awood yeelatana 25 30 sano 50 sano waxaagiiba wuxuu noqday waxaan jirinoo status koogii waxba la'aanta ah marka anu waxaan qabaa saacaddu waa saacad aakhira weey waqtigu waa dhacaya expiry date baa jira 25 iyo 27 sano ictiraafkaad horta Soomaaliland mid kale mid aynu xaqiiqsano dadkeenu waa dadaaleen waxbaynu dhisannay intaasoo sanaynu wax soo wadnay yani kartideena iyo maxaan ku idhaahaa hawsheena waxaynu qabsannay baa intaas muujinaysa tiyoonad ictiraaf haysan inaad intaasoo dhan dhistay marka waxaan ku koobayaa waxaan dib ha loogu noqdo dib ha laysu eego meesha ay wax inaga khaldan yihiin haddeerto dhalinyarada halkan fadhiday intii aanu sugaynay baan Faysal ku yiri bal intaaynu sugaynaa in kala faa'iidaysanay sababta ictiraafka loo doonayo iyo waxaynu ula soo noqonay xorriyadeennii ma dhigateen waxay yidhahdeen may iskuul looguma dhigin elementary school looguma dhigin secondary school looguma dhigin imika la yiri manhajkii lagu daray hadda iyaa lagu daray beeda dee adeer waxba inaga siyaa markaynaan taariikhdii bahayn dadkeennii aynu wax ka dhaadhicin xafiis iyo official unba halkan ka hadlo halkeer ka hadlay officials Soomaaliya Somaliland waa kuwa wax qaldaya aad ma santa ku soo noqonaya Axmed Kayse wasiirkii ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Ziraayo haddana ahaa xilligii waqtigan ay xukuumaddu ay talad ka sii dhamaanaysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta intaasi maxaad aad u raacinaysaa aanu laban ka kala dhigayaa oo midna waxa weeyaan ictiraafka dhabta ee laga helay caalamiga ee dayjuuri la yiraahdo iyo mid kale de facto la yiraahdo oo aanu imika wada haysano kan Soomaaliland waa haysataa de facto status waynu haysanaa oo aynan laynala macaamilo oo adduunku Soomaaliland ula dhaqmo si dawladda kale oo ay jirtaan aan ahayna xaqiiqna laga qarsan karayo
laakiin tan kale waxa weeye inaan member ka noqono inta iyo mid ixtiraafka caalamiga ah ee sharciyan ahayd inaan dowladaha 195 ah inaan 196 ka noqono haddaan qadanayn tiradooda marka waxa weeyaan horta 190 tii riyaalan waan jooga 2009 kii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waxa weeyaan in la intii waxa soo bedelay wararka ay warna la socday waxa weeyaan markii ugu horeysay inuu 18 May ku dhawaaqnay goonisitaaga shirkii Burco ee 190 18 May de waxyaabo badan baynu samaysan horta oo ahayd inaanu de sharci dejintii waaxihii dhisano dowladnimo oo ahayd sharci dejintii ay noqoto tii kale xukuumadii iyo tii kale garsoorkii ciidamadii aanu dhisano inaanu markaas ka dhigno Soomaaliland dal labtoon oo xasiloon oo dadkiisuna nidaamkii sharciga kala dambeeyo waxa waynu samaynay haddaba wasaaradda arrimaha dibadda 190 la aasaasay ilaa naxariisay Sheekh Yuusuf Shaqaale Madar lagu bilaabay wasiirka ugu horeeyay muxuu qabtay ilaa inta wasiirada maanta saacad ku fadhiya 12 afarta xukuumadda maxay noo soo qabsoomay in la isweydiiyo iyo maxaa markaa inaga qabiyo iyo xagee gaabisku ka yimid marka aan waxaan qabaa in wax badan aynu qabsanay waxna aynu ka gaabinay ama sabab badan ha noqoto oo hadhow loo sibir saarayo marka waxa weeyaan qadiyadeena madax banaanida si aan uga dhaadhicino waxa weeyaan wakiilaynu sabaysanay wakiilo oo dhowr iyo 22 maraya oo dalalka adduunka ku leenahay oo ka dhaariciyay safaaradaha waxaanu samaysanay safaraan ku gaala bixinay adduunka oo dhan si aan uga soo dhacnay qadiyada madax banaanida Soomaaliland guddi ictiraaf raadin baynu samaysanay oo heer qaran guddi ictiraaf baynu heer dalalka dibadda Yurub meelaha wakiiladu naga joogina waxaanu samaysanay buugaag baynu qornay ka dhaaricina qadiyada madax banaanida Soomaaliland iyo sharciga inay u madax banaantahay inay jiray dal jirta marka waxa weeyaan waxyaabo badan bay noo qabsoomay oo hadda abacadahan iyo garyaqaanada aanu adeegsanay oo aanu ku doodnay marka anu waxaan qabaa Soomaaliland ixtiraafkeedu mid historical iyo mid legal ba waynu dhamaysanay وانا شرعي waxaan ku taaganahay waxaan hor taaganahay anigu challenges kan hor taaganahay mid de wax la waa looma dhameyn baa la Soomaaliland inay u dhamaato oo maamulkeedu fido waa laga yaabaa dhaqaale laakiin anigu arrin siyaasadeed arrinta Soomaaliland hor taagan tan wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya hadii maanta wasaaradda arrimaha dibadda ama xukuumadda Soomaaliya higsigeedu ama goolkeedu waxa inay gaadho ictiraafka دبها يوم رسوا يسوي جالسة. كم راعسني فيصل على ولا بحر. كم راعسني بالله. هرت هجكوك هاي دفن كم راعسني. ودوز. وحكيت وقت الدولة دي داري على تبى واحد كله يولد تدالي. لكن أرنتين أنو كوك راعسنا هي شرعية أنو قن يعني يدرك شلا إنه هاي دايفاكتو وأنو حدود أنو لنا حتى مركز يكتب حالة منتفيدية استيت مجرد هالشيء كي منتفيدية ميوعة. يكون يصدق سكان ولا صدق حسد أنكي وينو بيحنا شروطه يدلمه وينو بيحنا شرعيا يبقى الكلام سواء لأن أيه هذا حق ونواتو ملكونا ميدو قال ميدو دي كودي شولا يكون يسقى ولا إحنا كي يجا فلان تلو ميدو يا أنا حق ولا إني صار نقدان أهلنا أهل عورة أنا ما هو أهل وجبة ومصر يا سوريا كلا نقدان السنغال يا مالي السنغال يا غامبيا وحسنا وكلا نقدان إلى تريا كتير لكن أهلنا وحلود دي يعني وأهل سياسة إن الدولة أفريقيا كعقدات كقبان إن هذه سومانا الاعترافه إن المر الحدود يمادو تاسنا ما سومانا وحي كلام قلنا يسمى شجعنا سوى حدودية هاي كل حشي إنجليز كمان كهيد محمد إنجليز هي مثل كلام لقى العية سوماليا ولا عليهنا كذا العية أقانسي السومالي إنه قد الكسر هدايو إنه قد الكسر هذا كوفير صو كسر دبالة ده نمتجريه السومالية كسر دبالة لكن دكتور برح وحش شيء إن كجابس ويشرو أنا الصومالي نجحنا كجابس بتشرو حكومة سكر الدنبي يعني واحد كله عرفت تاسي دكتور برح وحش شيء ما أنا وحكيت لك جورت أنا جابس كحاجة اللي قالها كلامي كميسانية ده مركن تجني وسالة ده هنا ده كون لما كوني سجال واحد 5 بليون يو حاجة 6 بليون بكيرة 2010 مركا وكلمية نقله ورجعنا واحد يجيب 5 بليون بكيرة ما أنت واحد مريس صد بليون بمريس هذا ما يفرق صد بليون أي مريس هذا أنا واحد قبا إن أي ولي أي تاي نقاله اللوب هنا إن لوره اعترافك هي كباسيتي لها وسالة أهلما دبت ودلك سميرو كلام سامية هذول كلا ودلك قانتا سو كلا لا إنتاج ريليشنس كلا كلا لا كانوا كسر ده قاني جوجان مركب حوي ولي أنا واحد هو إنه جابس كحاجة إنه كيمي ولا بدا أهلما لو قنعين لها إنترناشنال كوميونيتي جا إن لقى هول قالوا إنه حاجة اللي قالها أنا لا هي جابس بكيمي لكن حاجة شرعيا هي وحيابي كلا ددار بدل لا يلا قبل وش نقولي إن عثمان بسيني سجل الإنسان أنت أسكدري أنا waxay tahay afar qodob inay ahaayeen caqabadii ugu waaweyn ee Soomaaliland aqoonsiga ay aanay u helin 27 sanadood kow sharciyada horta in sharci marka hore waxaan laga bilaabo waa sharci qodobka labaadna waa siyaasad
qodobka saddexaadna waa xilfi qodobka afraadna waa dhaqaale qodobka koowaad ee sharciyadu waxa weeye Soomaaliland halkay ka bilaabaysaa sharciyada waxaa jiray fatro u dhaxaysa 26 Juun 1960 ilaa 1 July debateku wuxuu ka bilaabanayaa wixii 1 July ka horreeyay Soomaaliland iyo Soomaaliyada kale maxay kala ahaayeen macruuf waxa inay laba dal kala ahaayeen waa sidii Syria iyo Masar ay kala ahaayeen 56 ka hor intaanay isku darsan laba dal bay ahaayeen dabeedna markii dambe intay kala noqdeen ayuunbaa qolana Syriadeedii ku noqday United States Arab bay ahayd dalkii midoobay Carabta dabeedna markii dambe Syria iyo Masar bay kala noqdeen waa sidaas oo kale waa sidii Senegal iyo Ghana waa saas oo kale waa macruuf waa la yaqaanaa sharciyada markuu lama keenin miiska mid Security Council-na ma iman mid lawyer-na ma iman mid maxkamadda adduunka Hague-na ma iman marka horta taa lama bilaabin tan labaad waa ta siyaasadda oo ay ka dhalan lahayd wada hadallada way wada hadlaan dadku South Sudan iyo Sudan oo isku state ahaa oo isku taariikh ahaa oo isku dal kaliya ahaa isku weligood bay isku dal ahaa Sudan ahaa waxay ku kala baxeen shirkii Naivasha wada hadal bay ku kala baxeen heshiis bay ku kala baxeen in afti laga qaado South Sudan dabadeedna tiibay 2009 ku noqotay state South Sudan marka wada hadalkiina ma yahay wada hadal serious laga ahaa kullu waynu tagi doonaa xaggan Soomaaliland ragii tagayna baasha serious kama yahay qoladaasina qoladay soo dirayeen waxay iska waqti lumis bay ahaayeen marka guddidu wada hadalladu ma yahay kuwa ay dhab ka tahay inay Soomaaliland marnaba serious ma yahay marnaba labada qolo waxaad ku sameynaysaa marka waxaan ku xogogaalnimo ku sameeynayaa oo iska inta la fariistay guddoomiyahaba mar raacay oo xogogaal oo kale oo kamid ah hadalladaas ugu jira guddoomiyaha mar raacay markii dambe waxa uu tagi doonaa waxa ajende inta la dejiyay oo la isla fariistay oo qodobadii la qoray oo dabeedna dadka loo soo bandhigay inta laga dooday la yiri waxa ay 7 qodob baynu la tagaynaa may dhicin mashaariic turki bixinayo dabeedna Istanbul baa la tagay cid alla cid kale London baa laga soo raray waxa soo dhow waxay muujinayaan iska haydanaan qolada kalena laakiin guddiduun bay ku eekay hadii ay ajenda dejinayaan iyo hadii ay ku soo hadlayaan waxay ahayd hal balaaran bay ahayd xogaal baynu leeyahay hadda waxa leedahay Soomaaliland ayaa ka gaabisay marka qolada kalena serious ma ahayna waqti lumis bay hawshan uga jeeday qodobka saddexaad waxa weeye xilfi male Soomaaliland 27 ka sanadood waxaynu ku fashalanay in la sameeyo dunida inay xilfi ka sameeysan marka Kosovo ay goosanaysaa ama ay dalka noqonayso 120 dawladood baa u diyaar xilfi East Timor Australia iyo Western oo dhan baa riixay ilaa hadda cid ma hayno waxaan dhahnaa dalhebel laakiin dalku maalintaad u baahan tahay hadaan waxba ku tarayn xilfigiisu muxuu kugu jilan yahay tasad afraad wasiirkaysan ku waafaqsanahayo budgetka wasaaradda khaarijiga waxa ka badan budgetka TV-ga qaranka asas TV-ga qaranka iyo budgetka wasaaradda marka waxay ku tusaysaa inaan waxba loo tadxiya loo mara loobin bay u baahan tahay loo yarey u baahan tahay qarash bay u baahan tahay baarlamaanka yar meelaha iska jooga gabadhood wada iibsan kartaa wax doontaad ka dhamaysan kartaa runtii waxay u baahnayd qarash badan kaana waa laga hakraday afarta qodob waxaan qabaa in laga gaabiyo Salma maadaama aad kamid tahay aqoon-yahanka dhalinta yar ee Soomaaliland xiriirka caalamiga ah iyo siyaasaddan aad baratay Soomaaliland ma buuxisay shuruudihii looga baahnaa in lagu ictiraafo run ahaantii waxa weeyaan haddii aynu mawduucan si qoto dheer u galno Soomaaliland 27 sano sida la wada sheegay waxay ku mashquulsanayd ama ay hadal haysay mashquul kalaba hadaynu naan odhanaya ay hadal haysay ictiraaf helid iyo ictiraaf raadin xaqiiqadu waxa weeyaan waa la isku dayay waanan maxay heetoy wax ah in actually hadaynu detailskii haynin inaynu ugu bogaadino dadkii hore hawsha u soo galay ee hawsha u soo qabtay ma haynaynu ku dhalino waxyaabaha ay u gaabisay ama ay meel u mari weyday u guuleysan weyday maxay ahaatay hawshii ay qaateen الآن كأجرن ما ينبغى كوس وحرب وضل إن الأشياء الجريئة أما وحور بحين وكسر بحضي ولا ليه هاي عقبتها عين كاسبة إن جوهر يميون محياتي أرنت هاي أسرع ويدي دي أنا جو رنتي مو جمالي محياتي كوسو بندقان هسا هاتي وحويان ويسرع ويدي Somaliland اعتراف كيدو ماله بدن بكتيرة أو دبعتوا إنك محياتي وجوا وين وحويان عقبتنا الصومالية ولي كتيرتا مرحلة الدجال كا Soomaaliya مرحلة الدجال بكتيرتا وودن كأنه محياتي كلاسون نقولنا مدح بناني ذني وودن ماذا وجوه الرأي محياتي ده إن لجوا يدي وح اعتراف كا محياتي اعتراف هلدا Somaliland سيدا لجوا دلوقتي ريسن كأنه وجا بيستي اعتراف كإنه ما انتهى شو
ku dhaqaalena ma aha istahakrashana ma aha laakiinse waxaan aaminsanahay inay tahay aqoon darro capacitigii lagu raadin lahaa in actually lasoo helo ictiraaf caalami ah weli ma hayno marka loo fiirsado guddiyada loo xil saarayo ictiraaf raadinta waxa weeyaan waxa isweydiin leh ma yihiin runtii dadkii ku habboonaa ee maxay ahayd arrintan ka midho dhalin lahaa waxaan kaloo doonayaa inaan aan raaciyo ictiraafku sidaa la sheegay waa laba arrimood baa isbarbar socda marka ictiraaf la raadinayo midna waa tii shuruudihii looga baahnaa shuruudihii Somaliland lagu ictiraafo badal ictiraaf doonaya lagu aqoonsado ma buuxinay shuruudahaas Somaliland shuruudihii anigu waxaan leeyahay ma ay buuxin waxayna u buuxin iminka ayuunbay soo buuxinaysaa sababtoo ah Somaliland gobollo dhan oo reer Somaliland ah oo ay Somaliland tirsanayso xuduudaha Somaliland ku jira oo ah inay ictiraafkan ka qayb ahaadaan ayaa maqnaa waa tan iminka maxay ahayd shirarkii ugu dambeeyay dawladii Siilaanyo ay ku guuleysatay maxay ahayd gudoomiyuhu kamid ahaa oo khaatuma maxay ahayd Somaliland si buuxdo ka soo qayb noqotay marka iminka laga yaabaa inay 90% ama 85% marayso laakiin shuruudihii ma buuxin because wali waxaanu u baahanahay aqoontii iyo dhaqaalihii aynu ku raadsan lahayn ictiraaf buuxa aad baad maasantay waxaan siinayaa maxamed baan siinayaa masoo kelmadiisa waxaan kamid ahaa dadkii Somaliland bartay calankii Soomaali weyn wixii loo oran jiray aan arkin halkan aqoonta ku bartay marka taa waa ilaahay mahadi inaan Somaliland nabada joogno tan caqabadaha markaan ka waramayno in gudahaynu kala saar lahayn dibadda wax kartideena iyo awoodeena ku xiran awoodeena waxyaabaha ku xiran waxa kamid ah Somaliland 27 sano meel weynu gaari karleen baan aanu qabaa laakiin ama ka timaada xagga dawladda oo ama dawladii kala dambeeyay wasiirkiisa u maadsan wax badan buu inala wadaagay meel badan in la soo maray buu inoo sheegay laakiin waxaan rabnaa inaynu move forward aan sare u sii socono inaynu yeelano foreign policy cad oo Somaliland aqoonsigu waynu jecel lahay laakiin waxba jacaylku ma yimaado wuxuu u baahan loo dhidido wuxuu u baahan kharash loo bixiyo wuxuu u baahan dadkii aqoonteeda lahaa la dirsado markaan imika eegno dawladaha jaarkii haddaynu heli lahayn dawlad ina gacan qabata ama gacan inoo fidisa oo ay nidhaahno Ethiopia inoo noqonaysa line koobaad oo inoo cadaynaysa Somaliland inay aqoonsi u qalanto ama aqoonsi la siiyo deetana iyadu diplomatic ways ka inoo caawin kartaa inoo caawiso ama Djibouti oo Djibouti xornimadeedii baynu qayb ka ahay oo Somaliland dadka u dhashay qayb ka ahay marka Djibouti intii aynu ka mutaysanay abaalkeedii noomay gudina waxaan rajaynaynaa inay caawiso imika markaan eegno Taiwan waa wadamada aan la aqoonsanayn bay ku jirtaa laakiin Taiwan intay aqoonsi halka dhigtay ay tirtalo oo dhaqaale ahaan hadaynu isdhisno oo dunida inaga inoo timaado marka interest inaga aragto marka dambe ictiraafku inoo iman doona marka siyaasadii oo politicskiya iyo economicski oo power strong aynu noqono waa laba aan samayn karno labadani waxay inoo sahlayaan dunida super powerka dunyadu markay ka arkaan interest ay ka leeyihiin ayay imanaysaa inay yiraahdaan wallahi wadankan uu qalmaayo kan uu qalmaa marka Somaliland waxyaabihii lagu qiimeeyay wax badan weyn fulinay waxyaabo badan oo inaga inagu xidhnaayo fiishaleena hadeen inagu kor u qaadno wax soo saar fiican sameeyno dunida tusna inay interest inaga inagu yeelan karaan oo inoo iman karaan markaas aynu sameyn karaan waxyaabo badan ma la qabay ka mid tahay miisaaniyada iyo dadka la diro ee aqoonsiga loo diraa ma yihiin the right people inay noola hadlaan dadkeenu dooneen miisaaniyadii marka ninku wuxuu doonayaa inuu fariintaadii si ay u gaadho dunida inayna Somaliland ka bilaabin 1991 laakiin Somaliland ay ka weyntay koonfurta Soomaaliya aad maxamed injineer Faisal aan ku soo noqonaya xukuumaddii hore ee waqtigeedu dhamaaday ee madaxweyne Siraan Garwadanka waxay xukuumaddii ugu horeysay ku dhiiratay in wada hadal la furto Soomaaliya qayb baad ka ahayd oo 4 jeer baad ka qayb gashay wada hadalladaasi may noqon kuwa mid dhala oo ama wax laga soo saaro wada hadalladaasi carqaladaha hor taagnaa ama waxyaabaha ay u mid dhali waayeen maxaa kamid maadaama aad kamid ahayd dadkii xogaalka ee ka qayb galay markii la bilaabiyay waxa ka bilaabantay shirkii London Somali Conference London 2012 baad waa laga shiray ma tagnaa mise ka joognaa muddo badan markii macaadi maxaafil laga shiray waxaan ku tashanay in la tago laakiin la tago
ra'yi lagu midaysan yahay oo shirka laga sheego dee anagu waana kan wadanku laba wadan buu ahaa Somaliland iyo Soomaaliya midwaatna waa samaysanta waa intact tii kale hadday leedihiin tan baa ka wakiila dee aan jirin laakiin dabada ka wadaan waa la fadhiisanana shirkan resolution fiican baa ka soo baxay la odhanaya Somaliland iyo Soomaaliya ha ka wada hadleen aytiinkooda dambe xiriirkooda mustaqbalka deer mataqaanaa in English waxa ku taalay their future relations marka lama oran kara khasaare ahayd intuu entity aan ahay ay ahayd haddana waxaa la fadhiistay London sanadkii June sanad markii June la fadhiistana afar qodob baan soo saarnay afartaa qodob waxay ahayd minor and major oo kala saaro minorkii baan qaadnay inaan laga shaqeeyo areaooyinkan aan ku midaysanahay in badcadeedka iyo la iska xejiyo security iyo la iska sameeyo ayaa lagu heshiiyey haddana waxaan isku nimay Dubai labada madaxweyne afartii saxaabay kala saxeen haddana waxaan isku nimay halkaa markay marisay dawladdii hore isbedeshay oo arrintaa onaska ahayd Shariif Axmed waxaa yimid dawladdii damajadiid xasan sheekh ayaa yimid dawladdaasi kama yarhayn raali laanno haddan maqashid damajadiid iyo daba shaydaan iyo shaqo diinta ku abtirsada iyagu diintooda waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliya kala go'in ma halkaas ku qarsan yihiin markaa islaax iyo balaayo ku jiro halkaas hortay ay noogu yimaadeen laakiin markaa waxaa la fariistay Turkina qodob fiican baanu ka soo helnay waxaanu ka soo helnay horta markii Dubai aan tagnay waxaan ku darnay halkii Soomaaliya iyo Soomaaliya awlaheed waxaan ku darnay Somaliland government and federal Somalia government baan ku darnay Turkigana waxaan ka helnay arrin fiican inaan wixii development wadan kasta wixiisa wadan karo oo la siyaasadeen taas waa tii New Deal-kii Somaliland loo sameeyay special arrangement inuu sameeyay New Deal Somaliland special arrangement in wixiina gaar ahaato intaasoo dhan guul baa lagu keenay marka halkaa marino gudahay waa isqabsanaan guddideedii waa isqabsanoo dee qolooyin kale ayuu ajendayaal kala gaara lahaa boogtahay marka anagu halkaasaan kaga hadhay wixii intaa ka dambeeyena waxay ku dhamaatay March 2015kii inay nimankii damajadiid inoo keenaan maareeyo iyo niman reer Somaliland hadalka halkaas ku dhamaatay adoo si wada isma wuxuu yiri Somaliland guddida wada hadaladu daacad lagama ahayn oo in hawshaas waxa artin qadiisa daacad ka noqon xagad ku aragtay waa taas waa traitornimo taas ma meesha ma qabatay moogtahay oo dinina naga Somaliland si majni kaste adu in way khasaar ma nu gaadhin khasaar ma ahayn qolada damajadiid baash undermine gareenisay inaguna aggressive ma noqon oo dee ma nu talaabino meel kale ma tagin imkana waxa weey arrinteenu waa arrin iska salaxan gudaheena haddaynu hagaajino istiraatiijiyad samaysano sidaa uu sheegteena aynu saaxiibiyo in gacanteena qabto in abaaniya oo adduunka inaga abaay aan helo wixiina waa uma baahan Soomaaliya marka waxa weey inaynu horta gudaheena samaysno oo xuduudaheeda dadka aaminayno oo khaatumada ima goorta waxaan ka imay halka waxaan tagay arrinta khaatumeed aynu arrinta khaatumo bariga Sanaag Somaliland ay sheegisaan adduunka Somaliland kala haysta oo inta inagu isku maqan adduunka laga raadin Soomaaliya Sanaag ya cayn waxa la sameeyay map gaar oo qarka ku siman in state gaar laga dhigo Soomaaliya laga dhigo oo laga dhigay in exclusive beela gaar degan oo lagu subxaanallah laga yiraahdo cayn iyo sool iyo cayn iyo sool iyo sool iyo cayn ayaa lagu subxaansada oo dad gaar la leeyahay exclusive waad mahadsantahay marka dadka gaarka haddaan ku soo wadanka aan cadeynayn dhulka la wada degan yahay Somaliland aan mini states ka soo bixin dadkii aan accumulate garaynin oo Somaliland lagu wada raaliyahay aan la samaysan xafiiska soo mid ka daba geliya laakiin gudaheena hagaajina weeye aan dawlad wanaagsan oo soo jiidata ma Taiwan de imsa sanadood ba la ictiraafsanaa oo wax la helay fiito bay lahayd way dhisantay adu ma dhisantay ma noolaan kartid haddana imaka limbo kuma noolaan kartid we cannot survive another 2 years isla imaka nahay ma noolaan karno so ina waxaan soo afjarnaa road map samaysanaa strategy samaysanaa aynu two-way track samaynaa oo Soomaalida layna daba sidii meedka ahna aynu dee la wadnaa hadaladeena Somaliland ma buuxisay shuruudihii looga baahnaa dal la aqoonsado inay noqoto
buuxisay waa dhinac waana maya dhinaca kale haye sabab waa haayo horta marka ugu horeysa doodan aynu hayno sida wasiirkiiba sheegay waxa weeye maaha isdhaleecayn iyo iska hor imaasho waxa weeye inaynu afkaarteenna isu geysano aynu afkaar wax kala soo baxno afkaartuna waa kala duwanaanaysaa no problem waa wax dhibaato kuma jiraan haddii haa un la yidhaah waa mushkila marka dabcan afkaartu waa kala duwan tahay waayo somaliland way buuxisay shuruudii haye sidaa uu sheegay montevideo agreement baa jiray internationally meel la dhigay muddo hore dagaalkii labaad waktigii hortii meelaha 3 baa la dhigay waxaa la yidhi maxaa dawlad lagu aqoonsan karaa ta u horeysa waxa weeye dawladi ma u dhisantay oo kala dambayni ma jirtaa oo dee nabadgelyadii iyo wixii nidaamkii wada territory dhul cayiman ma degan yihiin dadku ma ogol yihiin dawladdii meesha taalla aduu shuruudo caynkaas ayaa la dhigay contract dadka wadano kale inay agreements heshiis la geli karaan waxaasoo dhan waynu ku buuxin sharci ahaan waynu buuxin laakiin sharcigu keligii uun maaha arrintan maxkamad intaa tagtuun dood wax lagugu siinayo interest baa jira waxyaabo dawladuhu ama adduunyada ma garanaysaa la isku kaashado la wada shaqaysto wax lagu qabsado strategies baa jira haddaad tidhaa ceel biyaan u baahnay oo aanad farsamadii ceel lagu qodaayaba aanad hayn haddaad haysana aanad raacayn dee biyo ma helaysid halkaasaad ku dhimanaysa somaliland anigu waxaan qabaa by the way adeerheedhe anigu aanan kaa weyni xog la iiga warrami maayo somaliland ictiraafkeyga iyo sheekadeeda waan darsay waanu joogay maanta wasiir iyo wasiir la-aanba qof ii odhan kara anaa kaa xogta haya ma jira baan anu qabaa kow marka xogta waan hayaa waxaan ka hadlayaa xog aan hayo somaliland markaa taariikhdeeda eegto nin baa daacad faysal waa runtiiyo inaan isku dacaydeen daacad iyo daacad lagama aha laakiin waa aqoontii dadaalka la geliyey sabab kastaba ha u dhacday anuu madaxweyneaan ogahay isku hawliyey oo hawshaa number 1 ka dhigtay waxna muu hayn waa ina cigaal ilaahu naxariista ayuu waanan joogo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii waraaqaha maraykanka ugu dirayay uu kolba qoraay toos baanu la socon waxa kaloon ogahay intii ka dambeysay dawladihii ka dambeeyay waa laba mid fursad cajiib oonan detailkeega sheegi karin oo 5 milyan inaga xidhnayd ayay ka gaabisay oo aanay waxba bixin dadkana aanay waxba u sheegin waa xaqiiqo loo baahan yahay in laga daba tago oo la ogaado anigu waxaan u arkaa dambi inay yahay dowladda cusub qaab nuuceed u maraysa ictiraaf بسم الله الرحمن الرحيم horta dawladda cusub kama mid yahay taayada la weydiinay qaabkii u maraysa laakiin waxa laga yaabaa laakiin taariikh ahaan ay ma historyga waxaan markaan ka sheekeysano ama wixii laga qaldamay haday dib u raacaan inay markaa qiimeyn karayaan wixii qaldamay dibaytana ay saxan karayaan laakiin mid yar baan ku noqonaya arrinta sharciga arrinta marka hore salma ka daba tagbaan laakiin professor Burhan bay ugu horeeyay oo ama tafiidiya dal jira ayaynu nahay heshiiskii shuruudihii dalalka laga rabay in dalku buuxinay برمن ببلاش إنه لا يهدد شوكتا وصدق مليون يا برا 4 مليون بنو شغلنا إنه لنا حدود عيمة وتي إنجليز كانوا كذا حلايا إنه الدولة وحق أورا يشرتوا ينا أودا لنا هاي الشيء كله قلنا الدولة العالم أفرتها ويانا أفرتها نربحنا لكن تسلمان هوسك حريقة وحويان وددتشنتا ودما اليوم أمر كيانا في الصومال الآن ما لها قاركود waxaynu soo dadajinay ictiraafkeena iyo higsigeena inaan gaano taas su'aalka uu bulxankeena ma yaabaan oranaya laakiin tan xagga sharciyada hadii kulay xaajani ma inuu kulida ismaana bokona ardaydeedii buu kamid ahaa xamarkaas abu balaar oo ku faraxsaneen maanta dood wada yeelan caawa dawladda ku jirno ismaan oo tan arrinta sharciga oo kale ee sharciyad kuma fadhiin baanu ku doodnay midnimadeena Soomaaliya iyo Soomaaliland balki 60kii aan isku tanay koodi July
distoor baa la qaaday 20kii Juun 1961kii dadkoo dhan way diideen intii codaysay 350 maaya bay codeeyeen lixdii degme ugu waaweynaa bariga Ingiriiskaanu ka dhaxlay jiray distrigadi jiray Boorame Hargeysa Barbara iyo Burco Laascaanood iyo Ceergaabo afarta ugu waaweyn 60 iyo ilaa 70 bay diideen 67 ilaa 62 ayay diideen distoorka oo ahaa midnimada marka waxa weyn horta midnimadeennii distoorkii aanu ku midownay looma codaynin taa waxa uu daliila baa loo soo xigtaa nimo baa isku dayay December 1961kii ay inqilaab sameeyay halkan reer Soomaaliland maxkamad baa la taagay dabeetana maxkamadda March 1963kii ninkii judge-ka ahaa Ingiriiska xukumayay ee judge-ka ahaa meesha joogay waxba uu ku waayay nimankii hay qabta because waxa la yiri may jirin union ama act of union saxa oo ay ku midoobeen marka horta taa sharciyada waanu ku doodna laakiin taasi waxa way jirtaa meesha waxay tahay xitaa magacay aanu ku midoobno waxa Somali Republic Faisal baa iga weyn gudoomiyaha وكل وجهه ما ملايين يا سومالي ربابل بيه جمهورية الصومالية مردن بالا بدلوا سومالي ديمقراطيك ربابل يسوي لقديه إمك أيضا لفتي ما يعني حتى كومي دولة دي ماشي ما يلا يو أنت ما يلا هنا قلنا سومالي ربابل بانو غيرنا وكون بكلا سومالي دولة جمهورية الفدرالية الصومالية مركورت واحد يا أبو بدنا حاجة شرعية يعني كجلي كرينو هي إنه يلا إنه بنان حكومة عصبة مصبيحي عبدينو قالوا لنا كينا يكفي يسكرتها ساعدوه شو ده كل قرارات كيو قال أيوة حياة بدنا وحقوقات بيمك وياه وكفي يسكريه تايوان وهرجوا China China أودي لها إد إسهرتاعي كرتها أنا يجري لكن سلا شيء توي شقيستين قدوقي بك شقيستين إنك وحبا إنه هرتاعن ما بينان فاهمين واحد إنه هرتاعن ما بينان سويدين واحد إنه هرتاعن ما صوماليا ما هو official صوماليا أنت أنا يدلن أنت أنا لدسين أيها الإسكين هرتاعن يا إسكين هرتاعن بس سؤال تعالى واحد إسكين هرتاعن وحوي وأمريكان إنجليز إيونا وذراعي وقوة أفريقيا وحنا يري إذا كوني كشيء كيستوى اعتراف ولا مجرها بابناي سوماليا وذهلا ومجرها بابس كله سوماليا أنا وإذا كاركايا officials إن مرمرين يان ومحن كودا هل كله ينقو هيو وأرجو حنقبها Somaliland dadkeeda iyo Soomaaliya dadkeeda waa la isku dilayaa maaha iyaga Soomaaliya ayaga waxba dhibaya mushkiladoodu tahay shacabka marka ku sheego waa qarax dhacay waa iyagiyo maxaan ku yiraahdaa mushkilada haysta waa 4.5 ay isku haystaan Somaliland sheekadeedu waaba yartahay in soo baxdo marka waxaan leeyahay wada hadallada officials baa lagu xawilay officials kan waxa loo dhigay riwaayad ay ku wada hadlaan anigu waanu joogay marka masiirigii la bilaabay in laga hadlo ee Djibouti laga bilaabay waanu joogay Istanbul ayaa lagu hagaagdaamiyay wixii bay istaageen intii ka horeysay hawada iyo waxana sheegayso tiina waa la noqday marka waxa weey runtii inaga mushkiladda aynu wajahno oo ah dadka Soomaaliya officials kan ha wada hadlaan intay hadlayaan haddaan la riixin kuweena qudhooda haddaan tala loola iman haddaan strategy aqoonyaankii shacabkii dadkii oo dhan aanay hawsha gelin kuwa Soomaaliyana sidaasi aanay u gelin officials ku riwaayadu baa la inoo wadaya finally sababta yani in loo wada galo anigu waxaan u joogay Faisal waa joogay isna Yurub buu joogay Kaysa waa joogay intiina waa idinka weyn Soomaaliya siyaad bare qori uun lagama qaadin is urursi iyo campaign political oo Mareykanka hubkii aanu kaga joojinay anagoo arday shaqaalay ah Ingiriiska meel walba laga kacay kuwii dibadda ay wada fadhiyaan dadkii aqoonyahankii iyo mutacallinkii qurba joogii dibadda ay wada fadhiyaan dadkan budgetku uun maaha mushkiladu dadka aynu dirsanay ee adduunyada aynu u dirsanay haddaad eegto maxaa lagu doortay hebel halkaa la dhigay aqoon laguma dooran karti looguma dooran mushkilada waxa yaala quran aad ugu dhaadhacaysa waxaan ku soo koobay war meeshan waqtigii baa dhacaye
xaqiiqadii aynu aragno oo muddaynu ku soo jirray alxamdulilah waynu ka noolahay dib inta la isugu noqdo shacabkanu dadaalkaa ay sameeyeen ay wax ku dhiseen adduunyadana in many ways ay kaga maarmeen adeeryaynaa khasaarinine dib ha la isugu noqdo somalilan ictiraafku muxuu kala maqan yahay bismillahi raxmaan raxiim ictiraafku wuxuu inagala maqan yahay horta inaan noqono ummad jirta oo dunida laynaga yaqaano oo la yidhaahdo somalilan waa wadan liiska dunida la aqoonsan yahay masiirka iyo waxyaabaha dunida un-ta inaynu member ka noqono inagala maqan yahay wuxuu inagala maqan yahay inaan deymo qaadano oo World Bank iyo IMF-ta inaynu development projects-kaynu u baahanay ama infrastructure-ka ha noqdo ama electricity-kaynu u baahanay ha noqdo ama industries-kan aynu doonayna ha noqdo wixii ictiraafku wax weyn baa naga xidhan dadkan waxay u haystaan in ictiraafku inuu yahay inta la yidhaahdo waa laydin ictiraafay deetana ay intaa un inoo ahaanayso laakiin ictiraafka dunidu markay wax ku siinayso shuruudaha loo eegay ka mid tahay kolley waad wada maqasheen sacad cali share wasiirka arrimaha dibadda kolley wasiirkan uu joogay waxaa la iskugu yeedhay safiirada dunidao dhan inoo jooga beri dhaweyto wasiiradii hore inta joogtay arrimaha dibadda soo martaa la iskugu yeedhay adna aadan baa kasoo qayb gashay maasha allah adna aadan baa kasoo qayb gashay adna aadan waxay tidhi waxaan ka warramayaa dadka laynoo diray ee la yidhi ictiraaf soo raadiya wax markuu muhiimad kuu leeyahay adna muhiimad baa la siiyaa dhaqaalaha muhiimad la siiyaa human resource-ka dirisi dadkii kartidii aqoontii inay leeyahay baa la siiyaa adna aadan waxyaabaha la yaab kale sheegtay waxaa ka mid ah waxay tidhi basafiiradiina halkaa fadhiya ee aqoonsiga doonayay maydinku jiraa cid baasaboorka somalilan intay ku socdaashay dunida ku martay oo uu ka buuxsamay no one was there baasaboorra ajnabiya la wada isticmaalayay haddaynu keeni lahayn inaan wadamada ka dhaadhicino baasaboorkeenna in dunida kale ay aqbasho oo wadamadan aad xiriirka goonida la leedahay ama walaalahayna ku sheegna Ethiopia ama Djibouti ama kuwan sheegino inayna ictiraafaan kuwan jaarkiina anu Uganda wax ku bartay Somaliland markaan uu sharaxayno they couldn't believe Somaliland markaan uu sharaxno mar dambe ayuu Somaliland Soomaaliyeed badan maqleen see ideolojiyadan Soomaaliya meesha looga saari karaa oo fariin loo baahin karaa Somaliland ba jirta waxaan siinayaa waxaan soo noqonayaa martay laakiin dhalinyarada jaamacada ka baxday kuwa dhimay baan siinayaa cidii su'aal qabtay iyo inantaadan ku horeysiyo Soomaaliya ma maxaan ku dhahdaa wax macno weyn sameynaya ma xaqiiqatan markaan ku eegno Somaliland ahaan laakiin beesha caalamka ka bilowd dalalka jaarka dhammaan Afrika isku daray la caalamka gudub markaynu hawl qabsanayna tii madaxweynaha oo kala haato waxay soo dirsadaan dad baa la soo diraa waliba baarlamaanada siyaasiyiin ay sareey soo dirsadaan wayna daawadaan lacagba waliba nagu waxaan ku aynu waran karnaa inaga ku kharash kareyno dawladeen iyo meelahaas iyo aduna way iska duulaan beesha caalamku halkee bay ka taagan tahay ictiraafka Somaliland ma sidaas ma la isku kan daawanayaa beesha caalamku wayna daawanaysaa inaguna waynu salaamanaa oo waxaan leenahay aad baan u hambaleynaynaa Ingiriiska Mareykan iyo wadamadan aan ka soo qayb galay beesha caalamku su'aasha la weydiiyaa maxay tahay ma weydiisan wali nimanka waliba siyaasiyiinta aan leeyahay caalamow waliba inuu argeyso jooga ictiraafka Somaliland wad aragtaan Somaliland heerka ay gaadhay halkeed ka taagan tihiin adun ma santi waxa israacinaya su'aalahan israacinaya horta ay magada professorka oo professor Bulxan iyo engineer Faisal Ali Waraabe waxaan weydiinayaa haddii aan Soomaaliya waxba ay naga xidhnay sida sheegayseen haddana wada hadal baa ugu tagi jirteen muxuu ahaa waxa kala hadli jirteen idinku taas waxaan weydiinayaa engineerka iyo professorka wasiir ku-xigeenkii hore Axmed Kayse waxaan weydiinayaa isaga laba su'aalood mid waxa weeye mar dhaweeto inantaasi hadashay adigoo soo gaabino dadkan si fursad wada helaan mar dhaweeto inantaasi hadashay waxay sheegtay Somaliland inaanay buuxinin shuruudihiisa lagu ictiraafi lahaa Axmed Kayse wuxuu sheegay waxyaabo international ah laakiin idinku dawlad ahaan iyo xukuumad bay matalayeen ma ka xishoon jirteen inay ictiraaf u doontaan dal wali iibsanaya caafimaadkiisii waxbarashadiisii leerkiisii biyihiisii shacabku iibsanayaan haddana shacab bisil ah ka timaadeen ma ka xishoon jirteen inaad tirahdaan haddana ictiraaf baan kharash ku bixinaynaa ugu baxaynaa taasina dunida xulafaa leeyahay inta badan waxaanu aragnaa markay wasiiradeenu baxana ma soo degaan xulafada u tagaan xulafada reer galbeedka iyo Mareykanka ma jirtay xulafo kala la hadasheen sida Ruushka iyo xulafadiisa oo kala hadasheen arrinta ictiraafka yaa kale raacinaya wax su'aal ama tala anu markaan Khartoum tagay 2012kii Suudaan ardaydii naga horeysay waxay wax ku baran jireen jaamac shahaadooyinka laga soo qaatay Soomaaliland ayaa toos lagu aqbali jiray
annagu markaan tagnay 2012 waxaan lagu yidhi wax Soomaaliland la yiraahdo aan garanaa ma jirto halkaa waxaa aad u dareemay in wasaaraddeena arrimaha dibadda ama dadka ma garanaysaa ay ku shaqale arrintan ictiraaf raadinta in aanay had iyo jeer wadamadan Afrika ama dalalkan maaragtay Afrika aanay awoodda saarin ama aanay in badan la sheergareyn ama aanay ictiraafka u soo bandhigin dalalkan inoo dhow Afrika ama ay wax badan naga xidhan yihiin hadday noqoto waxbarashada iyo barnaamijyo kale had iyo jeerna ay dadkeena arrimaha dibadda ay tagaan inta badan Yurub iyo Mareykanka doonaan marka waxaan oran lahaa Axmed Kayse wasiir ku-xigeenka uu ka mid ahaa marna ma tagteen dalalkan inoo dhow oo ma garanaysaa ina hoos ma u eegteen inta aynan tagin Yurub iyo Mareykan Afrika maxay inooga meel yaalay iyo dalalkan aan wax badan wadaagno sida Khartoum oo kala ardayna aad u joogaan waad mahadsan adoo waxaan siinayaa su'aal Faisal si uu su'aashii weydiiyay bismillaahir rahmaanir rahiim horta tii horeysay inuu weydiisay waxa adduunka ka taagan yahay waxa weeye arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya marba heer bay taagneed waqtigii ilaa magaranaysaa Riyaale madaxweyne Riyaale waxa la oran jiray case-kan waa case Africa waa Africa la macaamila intii uu yimi Axmed Maxamed Siinaayna waxa la case waa case Soomaaliyeed wata dee inaga Soomaaliya madax la isku keengeliyay marka adduunka halkaas uu ka taagan yahay laakiin dee xukunigu maaha inaynu Soomaalidu la hadlale inaynu Afrikaanka kale oo Ismaaciil Cumar Geliye Ethiopia Kenya iyo in qadiyadeeda iiminaa way noo furan tahay nuxurkan wuxuu isku imanayaa magaranaysaa qadiyadeena si daacada marka hore dal ahaanba uma lihiin priorities ma kala lihiinba hadday ma dawlad ka soo weydiiso maxaa ku priorities wali waxay United Nations ka reports kale naga qoro waxa ka mid ah Soomaaliland capacity ma haysato ay ku absorb garayso mashaariicda Soomaaliland ma haysato ma leh capacity ay ku wadan ku wado Soomaaliland ma haysato capacity ay wax ku beerayto iskarayso intaas oo walaas daba dhiga dad waxay naga dhigayaan aqoon daro ay uryaamisay yaa la naga dhigay tan markaa waxa weey inankaas weydiiyo su'aashaadii ahaydeen waxaad ka xishootaan inaad waxaan u dayn doonaa laakiin tii hore hay'adaha Soomaaliya waxbay naga xidhan waxaan la hadlaa Soomaaliya waxa ka xidhan waxa la yiri waa tan la hadla waxa la yiri hadla wada hadla ayaa la yiri idinko laba entity ah wada hadla adduunka laba jeer baa weeye ictiraafku mar waxa weeye wayna seegto marka wadan ka go'o adduunka ayaa ictiraafa kiyo sugan dhinacii kale ee ka go'ay sidii magaranaysaa Baltic countries ku kala go'een Croatia oo kale marka go'day markiiba Germany baa ictiraafay ku bareeshar galiyay aynka kuwi kalena marna waxa weeye waxa ilaa peaceful divorce baa ilaa wadanka kala tagisan ayaa la ilaa soo kala dhameystaa marka inaga taa hore waynu ku guul galaysan laakiin waynu ka shaqaysan wali waynu oo furantayna peaceful divorce waa tan la yiri wada hadla marka Soomaaliya wada hadla leeyahay hadday daysan ka taagan iska tagiyo waxaan wadan doonaa wadanka leverage ugu male idan xoogna ma qabsan karto abood kale ma leh laakiin Soomaaliya waxa la gooyay ixtiraafkii loo ixtiraafay laga saaray ku meel gaar ilaa waxa rasmi ayay istiraahan waxa tiin strong position Soomaaliya waa weak position halkaas hortay kibirka ka keeneen Soomaaliyana ma filiyo inay isbedelayaan laana waa dad isku dhaqan ah kii shalay tagay kuwa maanta fuulay waa isku mid waa dhalinyaro ku noolaa ku soo kortay Soomaaliland oo looyaa waqooyi galbeed la yiraahdo oo dadkooda baahayn marka dhalinyartooda marka Facebook aragtaan ma social media inay dalahan way beenanayaan in la xasuuqno dhacay way beenanayaan in hadda default state way beenanayaan state of denial wax la yiraahdo ayay ku jiraan iyagiiba aggressive inagii factory ayaa gabanayna marka ilaa inagu aggressive policy qaadano oo in waxayna doonno oo albaabka sagaraano waxaynu xoog dagaal been ku soo ceshanay madaxbanaadayni way ka jilicsan diplomacy dagaalkan galay waxa ka easy-san diplomacy haddeen u dadaalaa weeyo inta gudaheeda hagaajisano inagoo midaysan istiraatiijiyad leh focus saarno ko haddaynu doolan ahlin dee ixtiraaf bilateral agreement ma sameyn kartid baasaboorka ma aha simple passport ka xitaa kusoo ku noolaan mayno
marka inta wax kasta aan dhulka dhigno waxa weeye inaynu u midowno inaan objective u weynay aan u goosanay kaga baxnay ixtiraaf baa inaan ka xooga saarno marka waxa weeye imka waxayaan iscanaanan waad mahadsan tahay tabardaro ma haysee yaa waxay nin geelisi maqan yahay taageerada waxba maamaada jirtay ma inoo yeeshee ima kuwan dowladda cusub waxa jirta momentum fi abba maanta jira very good momentum opportunity fi abba jiro dalka degan sool ka koonfurta sool iyo bariga sanaag maanta 80% qalbigooda xaggooda nala jooga waa laga faa'iideystaa adduunka internationalkii inaga jeedsaday markii dowladda dib loo dhigay dowladdeedan dambe hadda ayaa inoo soo jeedisay labada opportunity ay haysanaayeen yani si Falastiiniinta noqonin oo la oran if they never lose opportunity to lose opportunity ayaa la yaabay yani opportunity iska luminay dowladda waxa ah inay focus saarno anaga iyo de veterankan magaca professorkan waan la daba taagnaan doonaa insha Allah taala دكتور بعد soo gaabinaya jawaabaha waqtigeenu beer faysal waana horena waynu u daba joogtay waanaynu ku wadi absolutely waana fursad wanaagsan imika waqti wanaagsan weeyo waxyaabahan regiimsku markay isbedelaan fursad cusub baa timaada dariiqii la soo qaaday waxyaabaha مثلا maxay dadka kale yiraahaan ee ajnabigu Somaliland marka aad dooda u geyso waxay oranayaan Somaliland imika mid baaba igu yiri intaasoo ambasiya samaysan karaya mid kale yani wax riwaaya waxaan la qaadan karin qaar baa oranaya sidii Faysal uu sheegay waa arin Afrikaanka ka dhaxeeya marka dambe waa arin Soomaaliya ka dhaxeeya waa ma jarahabaabin weey interest baa jiray waa maxay interestka waxyaabaha interestka kamid waa oil waa petrol meel lagu og yahay iyo resources lagu og yahay petrol un maahe oo aynaan inagu garan in dad ay u xidhan yihiin agreement uu jiro maxaynu ka door bidnay inaan dilaal ka iibino wax aan waxba ku keenayn waxna ku qoday lacag lagu kala qaato issues kii muhiimka ah kuwii waxaan haystee dujuur maxaan ku idhaa ma ku sheeganaya sharci ahaan inay leeyihiin lameynaan hadlo taasi iyo interest kala jira middan sool uu soo sheegay maalin dhaweyto cali khaliif oo magaaladan jooga ayaa hadal aad iyo aad u muhiim anigu aan ka maqlay joornaaladan ka akhri hargeysa anaga waxna siinina ee Somaliland aynu u heelino waa hadal aad iyo aad u macna badan gabigeena aynu iswada gacmaha isqabsano wax wada qabsano fursadda uu Faysal sheegay waa mid jirta taa qudheeda in la luus gareeyo ma policies-kii hore ee majarahabowga ahaa in dib loogu noqdo arrimaha foreign-ka certainly ayaa loo baahan yahay haddii isla teamkii uun isla agentskii kuwii representativeski aan strategy jirina waa halkii hore bay tegaysaa Soomaad garan waa in dib loo wada noqdaa annana waa wixii fikrada waanu keeni dadaalkii waa loo baahan yahay last point waxa weeye ictiraafku waa muhiim laakiin inaad isku tashato nabad iyo dagaal baad u tala gasho nadaafadda dhulkaaga cadaaladda ee maxaan ku idhaa dhaqaalahaagood dhisto tiyo dadku sinaanteedii maaha gobol qabyaaladan iyo waxaan laga tago oo cidda kuu timaadaaba ay aragto walee waxbay qabsadeen waa clear Soomaad garan ictiraafku muhiimkiisu gacantaada ku jira inta kale waa weydiiyay maadaama Mareykan iyo reer galbeed iyo Yurub iyo ay waxba laga waayay xulafada Ruushka iyo Shiinaha iyo ka waran buu ku yiri ruush baad sheegaysaa anywhere meel kasto interestkeena waa inaynu raacnaaba qabaa kow laakiin kuwa weeska qudhooda ayaan qabaa inaynaan hagaag uga shaqeysan oo ay noo tahay su'aalihii waxa soo qaybay xigeenka ay weydiiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa soo koobayaa xulafada Ruushka iyo koleyba Somaliland waan idin sheego ilaa iyo 20 wakiil baanu ku leenahay oo waliba wakiil rasmi ah ilaa dalna waxaanu ku leenahay wakiil sharafeedo xafiis kuma lihin dalalkaanu joogno intuu doonaha la kaada xiriir
iyanu la sameynaya macaamil meelo badan oo qaarkood oo dalalka ka mid ina waxaynu aqbalaano aan ku tagnaa ama maalintii ugu dambeysay safarada ku baxnay waa baasaboorka Somaliland macaamil fiican oo dowladnimo iyo xil fiican ayaanu leenahay marka runtii dee saaxiibada qaarkood ama sympathy u haya ama support haya qadiyadana taageero way badan yihiin laakiin berigii dambe mar haddii cadowgii Somaliland batay weliba Soomaaliyana ay ka noqotay meesha tagtaba la hebelba la kulmay warqad laga daba qorayo markii dambe xogtii wax la yiraahdo xafido balsir laga dhigo kulli lama shaciyay inta badan laakiin dee waanu soo wada hadalnay maalin inta safar meel aan ku tagnay saacadii wala socday dee qaar badan bay danaan nagaga xiran xamare iyo interest gaar ah hashaacina media inaan kula kulno laakiin support dee siinaya qadiyadeena taas waa taas marka waxa weeyaan dee hawb ka fiirin markuu ninka wasiirka ama wasaaradda dibaddu wafti ka noqday wiilada Ismaal Abubakar baan injineer Faysal Calawara Dr. Barham Balak inuu markaas qaar bay dhacdo warqad laga daba qoray ku arkolay maxaad u kala goonaysaa taas waa tan kale oo yiri maxaad uga xishoon weydeen dama nin baa shaqadiisa ka xishoodana ixtiraaf weydiino dhibaato way jirtaa dhaqaale xumo way jiraa waxa jira dad sixir balag waa jira waxa jira shaqo la'aan baa jirta waxyaabo badan way jirtaa laakiin de inagu tan iibinayna waxa weeyaan waa dal jira oo Soomaaliland la oo xuduudo cayiman leh xuduudo cayiman leh oo waxbarashada heshan xuduudo cayiman leh ayaynu nahay marka waxa weeyaan de ninkan su'aasha iga dambeeyay man arkin inay weydiiyeen lahamayaan ka xishoonin dal shaqo la'aan idagoo biyihiis ka bixinaya leerkiis ka bixinaya marka de Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda ugu wakiilhay de ictiraafka waa loo diro waxa la ictiraafkeena maxaan uga xishoonaynaa marka waxa weeye de adduunyada la ictiraafsan yahay dhibaato ka xun baa haysato nabadgelyo darro haysato dhibaatooyin badan baa haysta shaqalaantaas way ka jirtaa laakiin inagu waxaan iibinaynaa waa nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sida nabadgelyada aan ku iibinay iyo de dowladdeena shaqaynaysa baarlamaankeena shaqaynaya garsoorkeena shaqaynaya waxaas oo dhan kana si aan loo ugu dambaysa waxa weeye tan dalalkan Afrikaankana wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddu intii dambe la yiri Afrika la nagu soo raacay culays bay saartay xafiis weyn baanu ka furanay Djibouti iyana halkan bay ku leeyahay xafiis ka Ethiopia warba way ku lahayd lagana xafiiskeena waa Ethiopia ku yaala Nairobi baa iyadana jirta oo Kenya iyo iyaduna xafiis ka furanay in kasta ballan qaaday inay furtaan wali bay furan marka kullu xiriirka naga dhaxeeya dawladaha Afrikaanka waliba deriska nahay ay wax badan oo imika guulaan oo kale oo soo taabanay meel fiican oo maraya baasaboorada Soomaaliland waa lagu talin joogaa aad badan maasantay waxaan siinayaa Salmaan siinayaa basaan ka horreysiyo su'aalahaas oo ay soo koobasaan maadaama ku jirno guntiga gabagabadii barnaamijka marka waxaan weydiinay wasaaradda arrimaha dibadda ma xiriir ma la sameysay si ganacsatada isku xirayso wadamada wax looga baahan yahay waa qodob taasi qodob kale waxaan weydiinay professorka maadaama sababta Ingiriis iyo Mareykan inooga hor joogsadeen markii koobaad bay inaga aqoonsiga ee loo siiyay Soomaaliya maxay tahay waa noomaydan balbalaarin sababta waxa weeyaan su'aalaad in weydiiseen oo ahayd dawladdan cusub ee iminka maxay haytay Soomaaliland ka dhalatay dariiqadee bay qaadaysaa bay ahayd inay ictiraafkii maxay haytay ka gungaadhay iyaduna waxa weeyaan maadaama ay soo fail garoobeen ama laga midhadhalin kari waayay maxay haytay dariiqooyinkii hore la soo qaaday ama gudiyadii hore maxay haytay shaqaynayay ay meel ina gaarsiin waayeen ama aynu maxay haytay targetkeenu gaari weynay guulihii aynu rabnay aynu heli weynay maxaa inoo xala maxaynu kula talinaa waxaynu kula talin lahayn runtii anigu de horta in position kuma jiro aan waliba taladaa ku bixiyo shakhsiyan maadaama ay joogaan professor maxay haytay Bulxan iyo engineer Faysal Calwaraabe oo arinta la socday oo ahaa maxay haytay gudida dad ka mid ahaa laakiin waxa weeyaan hal bedelo wixii hore oo dhan gabi ahaanba Somaliland yani one dimension noqon yani hal kaliya isha saaren oo ayna noqon ictiraaf marka la yiraahdo Soomaaliya u jeestaa in Soomaaliya u wada dareerine dariiqooyin badan baa jirta yaan laga habaabin marinada oo maxay tahay dhowr marin hal la sameeyo haddii dhaqaale sidii loo raadinayay tahay haddii xulufo sidii loo helayay tahay haddii dadkii loo tilmaamay inay la hadlaan sidii ay ula hadli lahaayeen iyo cidii loo diri lahaa tahay iyo badanaa adduunyada markaad eegto siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan Mareykanka iyo EU-du oo Ingiriiskuna ku jiro waa kuwa wada haddii xal ay tahay haddii xumaan tahayba Afrikanka iyo waxaan iyo Soomaaliya iyo waxaasi hadday wax kale iska daa madaxa lulaan oo yes yidhaahaan way raacayaan hadday no yidhaahaanna way joojinayaan badanaa kuma dhiiranaan waayo interest ayaa ictiraafka ama lagugu siiyaa
ama lagu diidaa interestka laga leeyahay baa inaan fahmin inagu anigu doodo fara badan baan ka galay arrinta Soomaaliya Turki baan kaga galay Nairobi baan kaga galay Mareykan baan kaga galay waa mid joogta ah markaan dooda anigu oo taxan iyadoo taxan aan soo dhigo dad badan oo aqoon-yahan oo Soomaaliya ka yimi waxay yiraahdaan war bulxano waxaad ka sheekeynayso anagu ma ogine miyaad soo gaarsiisay dadka Soomaaliya waxaad sheegayso aqoon-yahankii iyo dadkii kale ma ogee bal kaalayo waxa sheeg anigu waan diidanaa in badan inaan tago waayo mushkilada halkaa yani waxay ugu jirtay fikrada war hadday doonayaan way heli karaan informationka laakiin markay soo noqnoqotay aakhirkii waxaan go'aansaday ila su'aashaan ka jawaabaya waxaan go'aansaday Soomaaliland baan u joogaa halkan mustaqbalkaygii iyo wixii oo dhan Soomaaliland baan qofka sanka iga marmarinaya leh hadalkan yani Soomaaliland waxay ka way goostay kelmadaha Faysal sheegay horta waa khalad waxaad ka goostay ma jirin way burbureen in the first place marka waxaan u socdaa in dadka xalku aynu meesha ay kaga dhowdahay ma aha Ingiriis ma aha Mareykan waxa weeye dadka Soomaaliyeed Soomaaliya hadday joogaan iyo haddii kaleba in la isgaadho oon officials lagu hadlaynin sheekada oo la furo ayaan aaminsanaa taasaan u tagay jawaabta soo gaabinaya waxa weeye runtii arrinta ganacsiga horey dhowr arrimood baana soo maray oo dalalka masalan oo kale dee baasaboorkana aqoonsan ama Ethiopia ama Djibouti ama meelaha qaarkood dad badan oo loo facilitate gareeyay oo fiisaha Soomaaliya baasaboorka ku qaatay way jiraan marka laakiin dalalka aan aqoonsanayn ama Soomaaliland iyo baasaboorada kale Soomaaliya shakiga ka qaba si maalintii loo tashirkii Jarmalka waxaan maray inuu Faysal ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga UCID in ganacsatada loo qabtay in waqti ku filan aanay keenin aanay ganacsatadii keenin baasaboorkooda ama codsigoodii si loogu diro safaaradda Jarmalka ay ku leedahay Nairobi oo kale marka taasoo kale waqtiga ka dhacay markii la waqtigu ka dhacay lafta ganacsatada laftooda mid waliba wax la soo baxay baasaboor Djiboutian Ethiopian baasaboor ajnabi oo kale oo European ahaynkaas oo kale laakiin baasaboorada meelaha lagu tala waqti hadii loo helo waa laga howlgeli karaa shirarka ganacsiga ay ka qayb galayaan aad ma santay guddiga gabagabada barnaamijka su'aasha ugu dambeeyay injineer Faysal oo weydiinaya madaxweynaha Soomaaliland cusub Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inuu wada kale u mari doono aqoonsiga Soomaaliland taasi oo ah inaanu si toos ah ula hadli doonin Soomaaliya balse cid ay dhexdhexaadin doonto sidaad arrinta u aragtay adigoo soo gaabay jawaabta qaleen arrintaas laakiin waxa weeye mar wuxuu laba qodob oo la hadli maayo wax weeye la hadli maayo haddana waxa wuxuu yidhi haddaan cidna dhexdhexaadin taas waxa weeye dee tii hore naqaano aan laga kaxay dadkii facilitators ahaayo ha loo bedelo negotiators and mediators oo tan ku doodina weligeed oo taas waa mid inoo dana waa arrin wanaagsan inaan dee gogoshan aynoo dhigine dee layna kala qabtaa ayaa way fiican tahay dadkana la ballaadhiyaa oo baasha turkigiiba ay jaagareeyeen in turkigii aan loo daynin barnaamijkii falanqayntuna toddobaadkan waa naga intaas waxaana barnaamijka ahayd la socodsiinayo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen iyo waliba Nuur Maxamed Nuur barnaamijkan mid lamid ah ka kulmi doono waxaad iga taganaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh